waxaan maanta si kooban uga hadlaynaa cadaaladii dalka iyo waaxdii garsoorka oo runtii leexatay isuna bedeshay xeradhiigtii xorriyadda aadamaha ilaahay abuuray xurmay leeyihiin xuquuqay leeyihiin dastuurka dalkuna wuxuu u damaanad qaaday muwaadin kaste oo reer Somaliland xirfadu doona ha lahaado ama suxufiyiintiina ha ahaato ama ganacsato ha ahaato ama culimo ha ahaato ama siyaasiyiin ha ahaatee in xaqooda asaasiga sharcigu ilaalinayo waxa dhacday muddadii xukuumaddan cusub ay timid 3 bilood iyo barka tacadigii ugu badnaa ee xadhigii ugu badnaa ee muwaadiniinta Somaliland ku dhacay inuu bilowday madaxweynaha hadda talada dalka hayaa wuxuu ku ololeynayay waqtigii campaign-ka lagu jiray waxa sareynaya oo mudnaanta yeelanaya waa sharciga waxa muddada 3 bilood la xidhay ku dhawaad dhowr iyo 30 qof oo maxkamadaha dalka sidii kolba rumaan loo geenayay barkoodna lagu ilaaway oo bahdil badan uu ku dhacay ama suxufiyiin ahaato ama dad qoraayaha ahaadaan ama dad abwaanaha ahaadaan ama dad culimo ahaadaan ama dad ganacsato ah oo dhibaato ku dhacday ka dida ahaadaan amaba curyaamiin cabatay ahaadaan in xukunno fool xun ay dhaceen taasi waxay daliil u tahay garsoorku waa gidaarka dulmiga muwaadiniintu ay ka galaan mar kasta oo qofka muwaadinka dulmi ku dhaco meesha loo irkanaya waa garsoorka iyo cadaaladda kafadiyo miisaanka in ummadda loogu xaq soora ay tahay waxa cad in garsoorkii la marin habaabiyey in garsoorku uu noqday bahal la galeen in garsoorku uu noqday meel lagu miirto dhiigga muwaadiniinta aqlan wa sharcan wax la aqbali karayana maaha waad ogeydeen curyaamiin baa waxa lagu xukumay wasiiraad ka hor buuqdeen 3 sanadood oo xadhigii 3 milyan horaan uga adan waxa dhacday hooyo ilmaheedii la'ayd ayaa 2 sano qofkii ka xaday ee xatooyada ku sameeyay hooyadaasi markay saxaafadii noo waramaysay waxay tiri Soomaaliya meel kasta lug baan dhigay kharash baa iga baxay ilmahayga u baholiyoobay markii aan helay sharcigii la hor keenana 2 sano la igu xukumay diinna waxa lagu xukumay kuwa qaatay 4 sano iyo 3 sano cadaaladda noocaas halkay ka timid goormuu xayawaanku ka xurmo batay aadamaha goormay muwaadiniinta suxufiyiinta qarankiina u adeegaya oo ka xuquuq badanayaan wasiirada cashuurta idinka la idinka qaado maxay haytay gawaadhida iyo gaadiidka guryaha kule waa su'aalaha isweydiin mudan sharcigu ciduu ilaalinaya waa dadka danyarta ah sharcigu ciduu adeegaya waxa weeyaan waa dadka nugul ee maaha ka lacagta haysta iyo ka xilka haya kuwaas waxay tahay inuu sharcigu ummadda ka qabto marka khaldamaya xeerlaaliyaha kiiska haya markii la weydiiyay la yiri maxad 2 sano loogu xukumayna wuxuu yiri sharci baan u weyn oo marka hore qofka aad soo xidhaysay aad eedeysanaha ka dhigaysay bileysku ku soo qabanayo sharciga ku fasaxay inaad soo qabatay eedeysana uu ku yahay marka maxkamadda yimaadana aad u waayisay inaad wax ku xukunto maxay dalkani aqbali maayo haddii maamulku xumaado haddana garsoorku uu xumaado meel allaali meel ummadda u badbaadaysa ma jirto aqbali maayo dalkani inuu saan ku sii socdo wixii madaxweynuhu sheegay waxa sareenteenuna waa ballanteennuna waa sareenta sharciga kufsi sharci baa dalka ka dhacay waxaan ugu baaqaynaa golaha baarlamaanka guddi hoosaadkiisa xuquuqul aadamuhu inay maxkamadaha soo galaan guddida cadaaladda qaranku inay garsoorayaasha eegaan in tacadiga muwaadiniinta ku dhacaya garsoorka maalin kasta gudihiisa lagaga sameynayo ummadda laga qabto haddii taasi suuroobi weydana muwaadiniinta Somaliland 6 gobolba waxay xaq u leeyihiin inay mudaharaad salmiye isugu soo baxaan oo garsoorka laga dhigay xeradhiigta xuquuqul aadamaha in lagu mudaharaado wata keensanaysa aakhirka wata
garsoorkii dalku garsoor ummadda u cadaalad sameynaya maaha, garsoor maxaa haytay cadaalad ka fogaada weeyaan, garsoor loo dul qaadan karaya maaha. wuxuu wado ummad dhan baa jeelasha maanta tacadi ugu jirta, cid ka hadlaysiiyo cid u tegaysiiyo cid maxaa haytay waxaa idinku filan agaasimiyi universal t v suuqaasaa laga qabsaday 15 cishaa la hayay sidii xoolihii, maalinta dambena waxa lagu rarado gurigiina iska tag, maxkamadii may sii dayn, dembi laguma helin, wax allaali iyo bal wax lagu qabsaday. hintiina imanka marada iga duubaysaana maanta haddaan laydin xidho berito hore saas umad xoolo u haanaysaa. waxaan ugu baaqaynaa cidda dalka mas-uulka ka waa madaxweynaha, wixii ummaddaad ugu baaqayseed lahayd sharci baa sarreynayana sharci sarreeye iska daayo xuquuqdii aadamaha lagu tuntay 3 bilood ee dalkaad joogta. hadday saana sii socotana kacdoon shacab baa abuurmaya. maxkamadahu waxay u baahan yihiin reform dhaba, maxkamaduhu waxa dhex jira masas baa ka buuxa, maxkamaduhu waxay u baahan yihiin in la sufeeyo, maxkamaduhu waxay u baahan yihiin garsoor cadaalada, maxkamaduhu dad aqoon laba u baahan yihiin. garsoorkii dalku wuu leexday, la aqbalina maayo. waxaanu leenahay madaxweynaha mas-uuliyadda ku saaran ummadda ugu dhaaratay ilaahaaga uga boq, garsoorka dalka hoos waay, meeshii maxkamadihii ummadii way ka taagan tahay. haddadanna waxaa la sheegayaa dad maata ah oo suuqa fadhideynta la xidhay in la isaga ilaabo. maxkamad ummadii la horkeenay maalinta la hor keenana dulmigii qofka lagu haystay sii xalaaleynaysaa maxkamaddu. kolba wiig rumaano, kolba wiig rumaano, kolba wiig rumaano, kolba wiig rumaano. waxaan u hadlaynaa waxa weeyaan waa xuquuqda aadamaha mudnaanta koowaad annaga xisbi ahaan noo ah. waxa mudnaanta koowaad noo ah xuquuqda iyo xurmada muwaadiniinta. waxa mudnaanta koowaad noo ah xuriyatal qowlka iyo saxaafadda in la ilaaliyo. waxa mudnaanta koowaad noo ah in xuquuqda suxufiyiinta aanu ilaalino oo lagu tacadiyo. waxaan ugu baaqaynaa markaa ummadda somalilan hadday sidan kasii firsan weydo oo isana waxay ku socdaan xuquuqdiina habka sharciga lagu helayaa waxa weeyaan in la sameeyo kacdoon lagu isaga caabiyo dulmiga maxkamadaha ka taagan. loomana sii adkeysan karayo aqlan wa sharcan wax la aqbali karayana maaha. wassalaamu calaykum.